hooyaday hadday noo sheegay waxaan jeclaan lahaa in hooyaday aan micnaha arko qof hooyo ka maqan tahay waa dareemi kartaa hooyaday marka in helo waa jeclaan lahaa. wiilkan halkan fadhiya aabihiina wuu dhintay, hooyadiina noloshiisa oo dhan ayuu baadigoobayay. bajaaj ayuu ku shaqeeyaa, duruufta u weyn ee hadda ka muuqatana waa baadigoobka iyo raadinta hooyadii, weliba si indho la-aana. muuqaalka miyuusan istaahilin in loo shargareeyo. salaamullaahi calaykum saaxiibayaal, kulanti wacan oo wanaagsan soo dhawaada. waa mar kale iyo barnaamijkiinii baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. anigu waa Cabdilcasiis Riili, cidda kaliya maanta ay garab taagan waa idinka muuqaalada ii sheergareeya meelo badan i gaarsiiya si mar kale aan dad u caawino. nagu soo biira haddaad igu cusubto maanta kaliya u ka horeyso subscribe ayaan kaaga fadhiyaa iyo muuqaalka oo sheergareyso. Facebook page-kana follow iyo like dhaha. haddii aad tahay saaxiibkii hore ila joogay, waxaan kaa codsanayaa in aad xog iyo wax walbaba nala wadaagto. saaxiibadaan jecelnahayo wixii talaana hawada ayaad noo marin kartaan. balse marka hore aan soo dhaweeyo walaalka Soomaaliyeed. soo dhawow magacaaga oo dhammaystiran iyo deegaanka naga soo booqatay. magacayga Maxamed Cabdullaahi Dacar. Maxamed Cabdullaahi Dacar, waxaa marti ku tahay barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee Ilintir. maxamed intee naga soo booqatay? waxaa laga soo booqday meel gobolka Xamar ka mid ah degmada Hiirwaa. degmada Hiirwaa ee gobolka Banaadir. sax. maxamed gaar ahaan waxar cadde yaa kaa maqan maxamed? hooyaday maqan. magaceed hooyadaa? Cilmiye Dhowr Maxamed. meeqa sanay kaa maqan tahay? 18 sano. meeqa jir tahay? 23 sano. hooyadaa sidee isku weyseen? hooyaday anoo yar wixii aatay way tahriibtay. adoo yar hooyo tahriibtay? halkee Sacuudiga ugu dambeysay. Sacuudiga ka shaqaysaysay. adoo shaqaynaa noogu wartabaysay. kadib maxaa dhacay? kabacdi waa la waayay awoow dhintay. wax raajka bacdi mana wax baafin mana. marka meeshaan la soo tilmaamay meeshaan waa soo aaday. aabaha abay waa dhintaasna. aabaha waa dhintay. maxaa qabataa adiga? ana motola. bajaaja wataa? bajaaja wataa. haye muddadii baadigoobka aad ku jirtay ee hooyo maxaa lagu sheegay? inaan nagu tabar Sacuudiga macnaha Sacuudiga gobolka Madiina joogtay. sida anami macnaha hooyo wiil markin anoo yar aad Sacuudiga. caruur kale ku loolatay hooyo dhish ma jirto? hal gabar jirto weyn. halkaas gabarna ayadana maalka jirta. miska warqabtaan? haas ka warqabnaa saaka ka tagay. haye maxaa markuu balanteen adii ayadaba? in aniga aado meesha tago. oo adiga raadis. waayahay hooyada Soomaaliya ka ayd qabiilkeeda? xawaalay ka aad. aabahana? abeena xawaaye Sacad. aabaha Sacad waaye. hooyadana xawaal waaye. hooyo aaba intay isku guursadeen? magaalada Xamar. Muqdisho. markii hooyo la weynay aabi hooyo ma wada joogin? markii la waahay meel badan kala joogay waa kala tageen. waa gartay. hooyadaa maxaa kaloo ka maqashay markii inta ay joogtay intaysan bixin ka hor maxay qaban jirto shaqo ah? Sacuudiga ka shaqeey jirtay marka Sacuud bas meel dahabla ka shaqeynaysa ay warta bas. dadku maxay ku raayeen marka? dad waxa ku arkay xilay meel dahabla ka shaqeey jirtay. haye saas ay warta bas marka. inay guursatay inay caruur kala dhashay maxaa akhbaar ma maqashay? ma maqaltaas. inay guursatay caruur kala dhashay ma maqal. dadka Soomaaliyeed ee ku daawanayo maxaa ka codsan lahayd? waxaan ka codsan lahaa inay fariintan gaarsiiyaan qof walba muslim. hooyada waxaa laga yaabaa in aad isweydeen oo ayagu idin kala geeyeen. bal hooyo hawada fariin u marsii iyada qudheeda maxaad dhihi lahayd? hooyaday hadday noo sheegay waxaan jeclaan lahaa in hooyaday aan micnaha arko qof hooyo ka maqan tahay waa dareemi kartaa hooyaday marka in helo waa jeclaan lahaa. waayahay ma guursata adiga? anama ma guursi. ma guursi. waa lagu caawinaa hooyadana waa lagula raadinaa. dadka Soomaaliyeed waa garab istaagayaan. waxaa loo baahan yahay telephone number lagala soo xiriiro oo shida lagu qoro. diyaar waa number waa haystaa. furaha waa 4 92 92 71 haye 10 10
lambarkaas adiga awd hay kaasaa lagaa soo wici doonaa isagaa lagaala xiriirinaa mararka qaar waxaa kusoo wacaya dad been ku sheegaya ku dhahay hooyadaa yemen ay ku xiran tahay sacuudigaa meel looga haya lacag soo dhiib waa been hooyadaa haddii aad xog ka helayso waa in lagu tusiya video call lagu tusiya muuqaalkeeda tusiya ha kadib aad ka xaajoo kartaa waxaan rajaynaynaa inaad nagu soo laabato adigoo faraxsan masha oo allah xog ka hela hooyadaa wax kale oo aad ku daraysa barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed inantir oo aan la wadaagaysa ma jiraan meel halaas la wadaaga hooyada inay helo baafinteeda taas u soo baxa saaka waa mahadsan tahay awlaalaha idan mudan guud ahaan muuqaalka intaan jeclaan kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno sidaas nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waad ku mahadsan tahay daawashadaada iyo la jooga barnaamijka inantir